waa mid ka mid ah ragga adduunka ka yaabiyey dhinaca lacagta. Waxa lacagtiisu ay kor u dhaaftay $260 bilyan, waxaana laga yaabaa lacagtiisu inay gaadho $300 bilyan. Halkan waxa ku sugaya dadyo tiro badan, waxaana dhammaantood ay doonayaan inuu saxiix u sameeyo. Waayo waxay ogaayeen halkan inuu ku jiro Elon Musk. Elon Musk sanadkan waxa uu soo saarayaa moobil casri ah, waana moobilka dunida ugu dambeeya, magaciisana waxa la yiraahdaa Tesla. Moobilka waxa lagu kala iibsan doonaa suuqyada waaweyn ee caalamka ilaa $3,000 ilaa $4,000 inta u dhaxaysa. Elon Musk waxa uu ku sheegay moobilkaasi inuu yahay kii ugu casrisanaa ee dunida soo mara. waxaana la sheegay moobilkaasi kamarada wax lagu sawirayo ee ku rakibani inay la mid tahay kamaradaha waaweyn ee lagu duubo aflaanta ama filimada. Elon Musk waxa laga yaabaa inuu hirgeliyo dayax-gacmeedyada lagu tagayo dayaxa, waxaana laga yaabaa dhawaan in dunidoo dhani ay u dalxiis tagto dhinaca dayaxa. Dayax-gacmeedkaasoo sheegay inuu dhexda u xidhay ninkani, waxaana uu sheegay inuu rabo in dadku ay u dalxiis tagaan dayaxa oo uu qof walba soo daawado. ninkan magaciisu waa Steve Harvey, waa mid ka mid ah ragga dunida ugu caansan maanta, laakiin waxa uu ka sheekeeyay markii uu yaraa inuu soo maray nololtii ugu adkayd. waxa uu yiri waxaan soo maray nolol ay adag tahay in qof caruurihii uu soo maro. waxa uu yiri qoyskaygu waxay ahaayeen kuwa sabool ah. markii aan iskuulka dhameeyay, hooyo iyo aabbo waxaan ku yiri waan iska tegayaa, waayo waxaan rabay inay iyagu isku filaadaan, aniguna aan meelahayga iska galo. laakiin markii dambe waxaan waayay meel aan cunto ka cuno. barafkii tirada badnaa ay daayay dushayda ayuu ku dhammaaday. waxaan dib u go'aansaday inaan gurigii dib ugu noqdo. markii aan gurigii tegay, hooyo iyo aabbo waxay igu yiraahdeen ha soo gelin ee halkan ka noqo. wuxuu yidhi waxay igu noqotay sheekadii ugula yaabka badnayd. waa maalinta aan aqoonsaday in noloshaydani ay rabto inay dhex gasho dhinaca darbi jiifka. waxaan la kulmay qoys isqaba oo waddada maraya. waxaan u sheegay noloshaydii oo dhani sida ay u salaysan tahay iyo halka ay ku socoto. qoyskii noloshaydii way gacan qabteen, waxay geeyeen shaqadii ugu horreysay. markii aan helay qarashkii ugu horreeyay ee aan shaqaystay, waxaan go'aansaday inaan halkan fadhiyin ee aan kor uga socdo ilaa aan gaadhay inaan ka mid noqdo aktarada filimada matala. ninkii darbi jiifka noqday ee suuliyada dadka xadi jiray maanta waa mid ka mid ah dadka dunida ugu taajirsan ama ugu magaca weyn. Steve Harvey waxa uu yiri noloshu waxay u baahan tahay in loo sameeyo dadaal tiro badan iyo weliba in loo sameeyo in qofku aanu niyad jabin. noloshu waxay u baahan tahay inaanad niyad jabin oo aad dadaal tiro badan aad samaysid. waana sababta halka ay soo gaarsiisay sida uu sheegay Steve Harvey. maanta waa dhiirigeliye dadka dhiirigeliya, waxaana uu leeyahay barnaamijyo waaweyn oo ay dadku dhani ku xidhan yihiin.